رمضان ده حياتي شمعة لمماتي إلا الباحث تبلش كطالب هالمعنا ما مقصود هالكبار لوجو قالوا لي سوتشي قرطان صادق وانو قال صعب بدلوته باروت كل كل جوي فيبا وحصاب حميد عضوين بارور أنا وسقي وحكمان مانو أبغى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن ونكسين دقيسيال ملك استوعدك يجودي كسوغاريو halkani waa rugta ururinta suugaanta iyo suugaalka ee Qalisoor taariikhda maanta waa 19 bisha 3 sanadka 2021 bil Amara waa maalin Jimcaha waxaan ku suganay magaalada Hargeysa waxa halkan ay gula sugan nin kamida odayaasha mudanka ah ee dhinaca suugaanta iyo taariikhda iyo suugaalka Soomaalida wax badan ka haya waa Axmed Maxamed Xandulle oo Axmed Waraabe loo garan og yahay Axmed waa nin waayeel ah waxaanu dhashay 1940 sida uu tilmaamay waxa noloshiisa intii badneed uu ku qaatay isla markaana waqtigan uu degan yahay dhinaca miyiga gaar ahaan deegaamada dhanka hawdka ka xiga xuduudda u dhaxaysa dawlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya iyo Somaliland waa dhulka hoos yimaada degmooyinka Daroor iyo Awaare way fara badan iyo dhacdooyin badan oo dhinaca nolosha ku saabsan ayaa uu goobjoog u soo ahaa waxa uu sheegay in waqtigaasi dhalinyarinimadiisa colaadihii Soomaalida dhexdeeda ka sako cabsida ugu weyn ee bulshada ay dareemi jireen oo ahaa bahalka libaaxa oo halis badan ku hayay nafahooda iyo xoolahoodaba wax badan ayaa dhibaatooyin u geystay bulshadii Soomaalida oo Axmed goobjoog u ahaa qaarna deegaamadii uu wax ka deganaa ay ka dhaceen dhawaan hadaba maraan kula kulmay magaalada Hargeysa ayaa uu iga sheekeeyay dhacdooyin uu goobjoog u ahaa dhacdooyinkaas qaar ka mid ah ayaa uu barnaamijka inuu la wadaagaya Axmed soo dhaw adigoo mahadsanaadeero taariikhadii weydiisay halka la yiraahdo daboole oo maaniga iga horeeyo aniga daboole wuxuu cunay adeerkay aadan cilmi bulaale aadan dheri bunanaysiisanahay aadan dheri kolka wuxuu ka qaatay meesha la yiraahdo iranka sare calayd ka sokeeyay xarshinagtiisa wuu la tagay uu cunay kayn buu la galay waa la raadsaday kolkii isagoo mariyay badeedna kayn buu ka baxay sukaloo galay kayn buu ka baxay tii uu dambeysay lagu dili doono waa laga wareegay dana waa laga gubay ninna geed baa loo saaray kolkii kayntii gubatay oo soo kayntay dhamaatay buu deedna soo booday waa la dilay halkii baa lagu dilay aadanna wuu mariyay lafana inaan laga aasimay la tahay كان بيجه الريو حسين حسن باكوتر أفتهم وابلي أركع عدد لقى عبسوني أنتوا عنين تعرضت بك عبسي والله على المال تان لقيتك إن إفتان شيء وهالكل جيس كاسم بيجه الريو وهكو حجي فرلو كنت قال بقول كنتكي أيوها صدقني باجيل دوني ويسوهرني يجو جيلي وضع ويهابين برتاي غورا غلينيا مودد نينكو دغاي او قاتاي كوي كلا حبدي كوريان ولا تغي جilba meesha la yiraahdo xashin hawdkeeda ayay caleydkuna xashin galbeedkeeda hawd weey jilbuhuna caleyd bay hawd ugu toosan yihiin oo kaana halkaas ku qaato way raadsadeen kolkay ka intii ka wareegeen buu soo boodo afar buu midba kolisaga afar taman uu dhaawacay Ahmed Sibiin uu mari ninka hore uu cunay Ahmed Sibiin bal Ahmed Sibiin inuu dibshiro Ahmed Sibiin dibshiro bsiiyay afar buu dib u dhaawacay in Cabdi Sabab ku jiro Ismaaciil Tumbur ku jiro iyo dib u dhaawac afar isna way dileen laba ma yahaysa isaga kolka ku 950 ilaahayo 10 jir baan anugu geelan wax ka yiilaalki anugu kolka uu cunay ninka geelashan wax ka hay laakiin qaybta kuma aan jirin kaas ka weeyay usmiiran cabo wajilalkii gooriisay usmiiran cabana wajilalkii gooriisay ka laba halkaas soo kuma dhama waxa yimi ninka kooro layla muddo dadka cunay isagu hiraadaha waqtigeed ku aaday wuxuu ka aaday ku 953 kii isagu cunay 13 jir baan kolka anaga habeen buu helayo habana kama cunin geerigu naga diidiyo ilaahay ma naga bixiyay laakiin xeradeen wuxuu cunay kolka aanu bari qabanay inay Ismaaciil arbaa uu cunay wasi socodkii soo socodkiina wuxuu naga cunay ali aaros waa labada midna uu mariyay waa ka hore si socodkii ka dambana waa laga meeyskiisa waa la as waa koor حسن قيوني سنة
حجر بيجد وكونا صدح صومه صدح يصدح حدنا يسوق رجي لحدا حدنا وكونا وحقوها ري كي محمود موسى عول يسوون عني محمود ولا وجد جري محمود نو داوع محمود موسى عول نكلا هاي هل كان بالله كيني الجيش الله كيني لبا صغيرو يلا كلا دغي هل كان دقسيرka weyn sageeni waraaba cunay waraaba qabqabtay kolkasakii waraabo cunay xalaaqay way walabeelo dhaawacbayni laakiin waa diga magac fiican tahay adna sariita dibaha lagu yiraahdo adna sariita waraaba halkaas inuu kala tagay labada hargeysa iyago dhaawac la keenay maxamuud musaawil buha waxa u dambeeyay kacaydii sanyare tibaax cunay nin aniga aanu isku filnahay ayaa geel ka carar oo farax jiila la yiraahdo isagoo geeri doonaya ayuu yimid libaax taagan habad intuu iska jiifsado habad ku soo libaaxuna ma arkay jiifkiisa intuu deystay ayuu libaaxyo dhaawac iska carar xeradii buu yimid wuxuu yiri libaax baan dhaawacay ina keena geed jiraana ka dhadgeeyo dayrtooga wad garanay saadkiisa baa lagu dhacay 3-4 kaymood ayaa laga bixiyay tii uu galay dambe ayaa la gubay dhinac dhanba la kolka kayntii gubatay sagiina uu jiifo ayuu mid kacay soo ku hoos jira kanu qaban doona kacay ajiiba haftii la sita bulaale warkuma jirayna keenadii ayuu ku soo booday sida boodadii ku soo booday ayuu ku ridayo afka dalqada soo kala ayo cankay jeexday afka dalqada kama gelin cankay jeexday gacan buu ku dhigay gacanta bidix sagii meeshii tiifay oo soo kacana nin walba halkii kaga xigtay libaaxa uu ka soo gaaray ay habad kaga dhashay habada lugta mooyaan habad kala kaba bixin kayn uu boodayo kayn halkan oo duura bursin yar ayuu dalaq ku yiri hadaba yow tagi walibaax dhaawacay waa laga baqday geed baa loo fuulay nin baa geed saar ninkii baa yidhi wallahi lugtu taagaya ila libaax inta bulbushi ku taala baalma cuna ma maqashay halkii baa loogu galay waa la soo jiiday qoortaan soo dhigay waanu qalay sacun baad moodaa baruurta kolka la gooyo jiidba waxa soo baxa mid cad oo baruur anuu ragii wax ka maray manu waan abahay ma dhadhamin laakiin waan cunaa باقي صبغينا هل بوكتو ألوس ليلا أيام كشوي يروي بوكستي ما عيدي تباهي محمود مسعى ولا بضبا الجيش أيام الجداوي ولا بدو بوكستي أنت كلامه لبدا واحد جيسة أفرتيكي داو واحد لحصومة لحنا وعنا أنت أنا نقول مركنا أنا وحول نقطعنا في رود بناي دوركنا إدلوها وحنكبر كنشري لبش شيء libaaxa kolkanu galabti geel caraabinayno bad baan iska dambaysiin jiray iyadoo ujeedadu tahay neefka geelaha cuno habeenkiina markanu seexano dhammaanaan shidan jirin geela bartankiisaanu geli jiray oo dabka uu ka baqdaa miyaana maqal libaax kan dadqaadkii isagu la nooc maha libaaxyada kale isaga kan dadqaadka geelu kama dido mana boodo wuu dusaa isagu kan dadqaadka kama disa geel uu ku soo dhex qaadayaaba ninka la yiraahdo caliaa wadaagaha uu ka qaato 70 geel la waxa muu ka dido waa tahay dhageystayaal intaas ayaan ku saafmeerayaa barnaamijkeena gaarka ahaa ee aynu ku wareysanaynay Axmed Maxamuud Xandulle oo Axmed Waraabe loo garan ogyahay waxaana barnaamijka aad ka dhageysanayseen rugta ururinta suugaanta iyo sooyaalka ee Qalinsoor tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka dhageysana waa anigoo Mawlid Maxamed Dawaaya iyo dhammaan bahweynta Qalinsoor oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh